murashax xildhibaan aqoon-yahan Khadar Cali Xasan Khadar Cali Xakiin oo gobolka Sanaag uga tartami doona doorashooyinka golaha wakiilada Soomaaliland ee fooda inagu soo haya ayaa maanta si miyiga miisaan loogu soo dhaweeyay magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceerigaabo waxaana murashax kumanaan ka mid ah taageerayaashiisa ay kaga hortageen duleedka galbeed ee magaalada Ceerigaabo waxaana madashii soo dhaweynta soo buuxdhaafiyay madax dhaqameed siyaasiyiin mas'uuliyiin kooxaha hay'adiga dhaqanka haween iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada dadweynihii soo dhaweynaya ayaa wajiyadooda laga dheehanayay shucuur farxad ku laran tahay iyagoona ku dhawaaqayay eraya ay ka mid yihiin murashax Khadar iyo haanta ugu rida waxaana markii murashax halkaasi soo gaadhay oo mid u gacan qaaday dadweynihii soo dhaweyntiisa u taagnaa waxaana madashii soo dhaweynta ugu horeynba halkaasi ka hadlay waayeel waxgarad cuqaal boqorro xildhibaano iyo siyaasiyiin kuwaas oo dhamaantoodba halkaasi ka cadeeyay sida ay codka iyo taageerada bowlo barbar taagan yihiin murashax Khadar Cali Xakiin iyo sida ay isugu raacday beeshii soo sharaxday aad iyo aad baan u soo dhaweynaa ka madax dhaqameed ahaan ka beelaad ahaan ka Sanaag ahaan waxa weeye waxa leenahay haliyaga watiyo haanta ugu rida codkana beesha Jibriil Saalax magac laba miskiin ma aha baa soo sharaxday waa la qaadanay waayeelka soo sharaxay waana soo dhaweynayna waana ku garab taaganna maxaad bas loo oranay waxaad moodaa maanta in ay tahay dholatuskii ugu xooga weynaa maanta in la qabtay meel kalena waxba naga yar si ahaayo odayba waxa nagu yar soo socday maanta waa quuskoona weylata Khadarna waxaan leeyahay marka hore aba Ilaahay magaca ku hagaajiyay oo Khadar baba lagu yiri Khadarkii noqo Ilaahayna waxaanu kaaga baryaynaa inaad noqoto mid dalka iyo dadka iyo diintaba anfaca guuleystana maanta waxaan soo dhaweynaynaa aqoon-yahan Khadar Cali Xakiin ma aha nin u baahan qabiil nin u baahan degmada Ceerigaabo waa nin u baahan gobolka Sanaag oo dhan war maanta daad ma qaaday waxaan leeyahay guuleysto Khadar Cali Xakiin waxa uu soo dhawow haliyay kamida haliyada soo dhicin kara xaqa gobolka waa haliyay kamida haliyada wax ka tari karaya xaaladda maanta gobolkeenu ku jiro nin wax tari kara tahay nin gobolka wax ku soo kordhin kara tahay nin aqoon-yahan tahay aad iyo aad bu gobolka ugu baahan yahay Khadarna waxaan leenahay soo dhawow anigoo ku hadlaya afka xildhibaanada golaha wakiilada gobolka Sanaag guud ahaantood waxaan soo dhaweynaynaa xildhibaan Khadar Cali Xakiin waxaan leenahay ku soo dhawow gobolkaagii iyo dadkaagii madii waa irtaasi lagu soo dhaweeyay aad baa laga farxiyay adna waa ka farxin doontaa insha Allah waxaan leeyahay bambaxeena iyo farteena isu ekaadeen xildhibaanka magaciisa la yiraahdo Khadar Cali Xasan oo aynu beesha Jibriil Saalax soo dooratay oo isku soo raacday oo aan loogu kala hadhin laguna kala maqnayn insha Allah taala waxaanu dadka aad iyo aad ugu ogeysiinaynaa ninka oo ka sharaxan golaha baarlamanka inuu yahay nin la isku raacay waxaan rajaynayaa astaantiisu waa haan reer Sanaag Khadar waxay ku leeyihiin haanta waxaanu ka sugaynaa subag sixina oo saafi ah oo aan lagu saxan waxay kale ku leeyihiin reer Sanaag qof kasto isku dayo inuu suusto waleeyo ama uu safka ka baxo wuxuu sheegi doonaa subaga sixinka ee saafiga soo dhaweynta qiimaha badan ee aad noo sameyseen waqtiga dheer aad taagnaydeen cadceedda Ramadaan iyadoo ah aad iyo aad baad u mahadsantihiin Jibriil Turwaaga halka jooga ee qaraabe iyo qoys iyo xigaal iyo xidid iyo ehel mid kasta cod baanu ka doonaynaa murashax Khadar Cali Xakiin oo dhankiisa halkaasi ka hadlay ayaa si weyn ugu mahadceliyay bulshadii soo dhaweysay waxaana uu sidoo kale ka warbixiyay waxqabadkiisa hadii uu soo baxo waxaynu soo saarno gobolkeenan kuma cashuuri karno maxay noo diiday waxay noo diiday xeerarkaas u baahan wax ka bedel hadal badan uma baahna wax kale uma baahna waxa u baahantahay in xeerarka wax laga bedelo xeerarka dalka hore u yaaleen wax laga bedelo xeerar cusub la sameeyo oo u hiilinayo gobolka sida awgeed waxaan u dadaalayaa aan xooga saari doona biidnillaahi kariim xagga shuruucda ayna ciishay xagga sharciga aan xooga saari doona biidnillah sharci aad la dejiyo ama sharci la hirgeliyo ayaa dhali kara barwaaqo sharci
la hirgeliya barwaaqo samayn kara sida awgeed xagga shuruucdan xoogga saari doonaa mar labaad iyo mar saddexaad mar afraadba waan idiin mahadnaqayaa reer sanaago waxaan u baahnay inaad ii hiilisaan reer sanaago hiil baan idinka baahnahay reer sanaago hiil baan idinka baahnahay cod baan idinka baahnahay aragti baan sitaa aragti baan xambaarsanahay aragti baan sitaa insha allah aan doonayo golaha la tago biidnillahi alkariim intaasi kadibna gaadiid tiro badan ayaa murashax Khadar Cali Xakiin u soo galbiyay gudaha magaalada Ceerigaabo halkaas oo ay shaaracyada dhoobnaayeen kumanaan taageerayaashiisa ka mid ahi sidoo kalena waxa uu taageerayaashiisa la lugayay gudaha magaalada Ceerigaabo ilaa ay ugu dambeyn isugu soo biyo shubteen xarunta xafiiskiisa gudaha magaalada Ceerigaabo ويونس شيخ أحمد ستار تي في مقالة Ceerigaabo.